ujeedaan weli baartigaa socda waxaa ogaataan everything in life start with a baby step maxaa yeelay babyga haddii la dhalo isla markii ma socon karo waa inuu gurgurta oo dhadhaca ka bacdi u soconaa mano marka anigana that what I'm trying to do ma fahamteen and you can't build the bridges overnight hal habeen buundo ma dhisi karto ilaan buundada waa arkaan buundooyinka waqti sanada ayaa lagu dhisaa marka idinkana waxaa rabtaan hal habeen inaan wax kasta ku sameeyo kuma samayn karo aniga nafar waaxidan ahay hase yeeshee aniga directorkeena insha allah wada shaqayn doonaa insha allahu tacaala waana idin soo salaamayna wax kastoo samaynana waa la socon kartaan waxaad kala soconaysaan Boss Media Production Channel hadda xayeysin rabto in lagu sameeyo aniga directorka diyaar ayna waa ismina xayeysin warka dukaamada wax kasta ya directorkana waa diyaar maanta nin waxa waaye ilaahay uu kuuran yahay professional camerist waay oo VIP ma fahamtay so marka hum hadalme hambirisna oo itume la erigooda war hawsha ha badnaato shaqadana maxaa lahay hadalka ha yaraado sorry Soomaaliya hadan qaldi garalaada waxa waaye hadalka ha yaraado hawsha ha badnaato anaga waxaan diyaar u nahay inaan shaqaysano aanan dadna ku mashquulin marka aan wada shaqeyn dadweynow waad ogtihiin wax socdo waan dee adduunya waa lagu bariyo koodha marka hadhow qofku markuu dhinta waxa dhina imanka qofka hadda markuu joogo war gacan qabta ma taqaana wixii hadda hayeysin doonayo la soo xiriira Boss Media Production based in where Birmingham marka waxa way shaqada waa socotaa hadda kulli hadda mar dhow waad arki doontaan xayeysin oo ajnabi ah meesha soo gali doona oo dad hadda oo promotion uu sameeyno na taageero marka intii kulli wax nagu kala kacayo insha Allah hoolehna iska wadanayna channelka waa channelkeena ku soo dhawaada Boss Media Production fahamtan marka directorna waxa way degree dhan soo qaatay maxaa way 3 sano jaamacad oo wuxuu la rafanayo mataqaana sida oo wax producerka iyo wax loo sameeyo soo baranay ma fahamta marka khayr Allah siiyo marka de alxamdulillah rabbil alamin guulay ma ku gargaara masna gafura ki ridii la erikoode ajib aadaajinka aroosin awde ki muddo leeray marka wayno arga dambe maanta tahay maalin sabti ah waxa way maalin nasasho laakiin aniga waxaan u imaanay meeshan ina idinku wax idin sameeyna nala gartano asxaabta bye we love you assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh akhyarta saan idin sheegay maanta tahay maalin jumca waxaana naga casuumay aniga iyo directorkayga ilaahay duu ku roon yahay xaflad oo dad ajnabi wato waana arki doontaan yawm al-jumca waa maanta jumca al-mubaarak neighborhoodka dhan waa la dhisay ujeedaan marka waxa way nala socdo aniga iyo directorkayga cusub gaarigu wada koodha ilaahay duu ku roon yahay marka dee waxaan u soconaa hadda meeshii iyada ahayd xafladii baan ku soconaa waxaan idin soo duubi doonaa haddii wixii waraa hadda haddiina waysaan aniga iyo directorkayga after 20 hours we've been kidnapped na soo raadiyaya dadkan ma ku soo raadinaya laakiin koodha Soomaaliya marka waxa way marka sheekadaas jirtaa waxa way meel aan laga wacay meesha rabaa hadda inaan aado ilaa duuroon yahay oo ujeedaan what time it is marka like I said yaan isku mashquulin reerka hala wada baashaalo hala shaqaysto hala kala shaqaysto nin macallinkii inta kor wuxuu yiri wadanka u shaqeey kana shaqayso marka waxa way aniga runtii saasan diyaar wahay inaan ka shaqaysto una shaqeeyo wadanka marka kolay meesha waxa waaye meel oo afaara laga hadlaayo carnival ka soo socdo August marka hadda waxaan ku jirnaa June bisha maanta joorno 4 waaye marka meesha shirka waxa dhacay 2 maalin ma fahamtay ilaa 3 days marka mataqaana dadku waxyaabaha sameyn lahaayeen marka maadaama anigana aan ahay qof newcomer marka directorkayga yir meeshan ku geynaya mataqaana he want to promote my ass no problem I agree ma fahmino marka kulay anigana de Soomaali ayaan represent waxa Soomaali ayaan u hadlaya Soomaaliya idinka idin hadla mi ogashin horta inaan idin hadlo qofan hadal aqooninana koodha marka hadhow yaa la dhibsanan yaa la dhihin mataqaana de ninkan
Yeah, what the hell is he talking about? Muxuu ka hadlayaa? Marka waxa way Soomaali oo dhan ya ayaan u hadlaa aniga Soomaali oo dhan qabiil uma hadlooyo ma fahamtay raxweyna u hadlaa idin ma dhihin waxa way magaca Soomaali weyn magaca Soomaali oo dhan ayaan u hadlaa meesha markaan tago insha Allah ta'ala idinkan waxaan rabaa inay idin soo duceysan ya ducada igu caawino walaalahayga tiin umadeedatiin idinka idin halgamooya hasiyeeshe waxa way ilaahay maartay shirkada kuwa ka guuleystay Allah naga dhigo ana hadda aan ku cusbahay kulay laga yaabo directorkay inuu hore uga gali jiray meesha asal shaqeeyo dadkan dad ajnabi way ana ma ka saay kulay aniga Soomaaliya isma iska ahay marka maadaama dadkii aan ku cusbahay de meeshan asaa ay wata aniga marka I have to listen waxa laga hadlayo waxyaabaha jira inaan soo ogaado wadii yahay wixii wax suuragalna de waxa waaye Soomaali ha noolaato waa sida la rabay haday suuragal noqon weysan waxa la asta Lamanya Adios مفهمتي مركز إن شاء الله تعالى لكن الدايركتور كي يقول ماشي وعمل مرتي VIP شدان مركز وكدت كوميونتي وحواي إيشيان يمدو يسكت أحجر واي عدان مركز سومالي كما قلنا الأردن ماشي مفهم الأور أنا كنا مقع سومالي هم وطنو سوى ورا مقع عالم كوجود دجال ما أنا كسياسي مي كبيش لكن وحواي وكا كوميونتي سومالي waxaway Soomaaliya dad isra Allah ka dhigo dad isjecel ilaa sukan jeclaysi walaalayaal marka hadee waxaan idin codsanayaa inaan noo soo duceysan oo shaqadan Ilaahay guul naga siiyo anaga meesha lacag ma soo qaadin laakiin magaca Soomaaliya u dhimanayna maadaama magaca Soomaaliya u dhimanaysa ma fahamtay marka waxaway you can fight with the pen Soomaaliya ya marka meesha dan aniga baalka ma furi karo so sababta waxaway ilaa shirba lagu jira marka meesha kulay وأركينا إن شاء الله تعالى أدو إلهي كرا للنقضان بإذن الله كريم مركا إذن كان سود دعينو الدعاء يلا سينك الله سين حتى الدعاء ما يسينك على هاي ما هاي بسم الله الرحمن الرحيم خاصك الدعاء يلا سين يا هنين دعاء إن شاء الله تعالى إنه إلهي نوفد الديو أرنت إلهي هديس كرا للنقضان مفهمتين مركا هدي الصومالي أنا سجعلانو صومالي أنا وضع الشقيسانو Soomaali aan wax isla qabano Soomaali de aswalaalsano ma fahamtay war hadan dadalno meel waa gaari karnaa waa gaarina Ilaahay uu na gaarsana laakiin waxa la rabaa kalsooni niid samaan meesha di kalsooni niid samaan jirin waxa hagaaga balisha Ilaahay kugu daarsho ya hadii meesha ma taqaana de kalsooni iyo niid samaan ba aan jirin se wax loo qaban karo dadka u soo ajnabi way habartay madin aabay madin I don't even know them though from Adam but I'm going the reason being waxa la yiri waxa sajira soo arag wixii ku anfa ka qaado waxaan ku anfeen iska dhaaf there's no qasab ma jiro ma fahamtay laakiin waa tagaanay meesha gool ii gardara ana waa idin soo tabin doona warka marka de intaas la gaarayo nala socda amaba ila socda ma fahamtay marka sheekada waxa way my director is behind the scene go kana halayna anigana front of the camera as usual marka makastan ya marka kuna matata way ya marka aan wada socon maanta jimca way jimcatul muslimiin ya قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي اليوم من صلاة الجمعة فعسوا إلى ذكر الله ما مركا الحمد لله مركا دجنا مركا رسول معنا وحوى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولا كلا قرابنا ولا كلا حمالنا حتى حمالت كم كجرار السقدان يا مركا دتكيجي إلى السعودة حتى أنت إذن كأذن كدم هذا حتى نولا إذن كأذن نولا مقع الصومالي ودرن كالله يعني قبيل مكادوي all Somali ban la hadlaya meel kasto joogan beled ibadi maghrib maqshad ma fahamteen only thing aan idin ka rabo support war hadda intaan noolay iga faa'iideysta aan idin faa'iideeyo aan noo wada faa'iideeyo hadhow markuu dhintaa dhihi doontaa wallahi cunugiisaan u ahaa nin fiican u ahaa markaas it's gonna be too late but right now is the time markasteen hadda waqtiga intuu waqtiga yahay aan joogna hadda insha Allah ta'ala intii Ilaahay ki roonyo walaalayaal bal ya dad waxa way meesha u soo dhawaanay hada waxa way meesha waa fogtay meel dhow u maleynay ani kooda abka aadin oo taxaw waxa way horta meesha waa yara fogtay laakiin akuna matata
kama حاول Birmingham laga baxa waxaan ka soo sheego ya marka okay ya khair marka isniin iyo boqoyas waa idin jeclahay hadda meeshaan galoynaa marka soo duceeya raalina ahaada I love you all meel kasta joogtaan aniga directorkii waa idin salaamnay salaamka muslimka mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته